kulan ballaaran oo ay galabta isugu yimaadeen magaalada Garowe ee caasimadda dawladda Puntland qaar ka mid ah madax dhaqameedka iyo aqoonyahanka reer Puntland ayaa waxay hambalyo iyo taageero ugu direen madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka cusub ee maanta la doortay ee dawladda Puntland waxaana madax dhaqameedkan iyo aqoonyahankani sheegeen in madaxweyne Siciid Cabdilaahi Dani iyo madaxweyne ku-xigeen Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash ay yihiin laba shaqsi oo ka bixi kara xilalka loo doortay waxayna Ilaahay uga baryeen in Ilaahay xilkoodaas u fududeeyo inaan halka ka hambalyeeyo madaxweynaha cusub ee la doortay mudane Siciid Dani iyo madaxweyne ku-xigeenka cusub ee la doortay Axmed Cilmi Cismaan Karaash waxaan u hambalyeynayaa guusha ay gaareen ilaahay waxaan ka baryeynaa in abuurtay waxaan ka baryeynaa dawladda dhalatay dawlad khayr qabtay inuu ilaahay ka dhigo waxaanuna madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ugu hambalyeynayna inay ilaahay hortii si fiican dadka ugu shaqeeyaan madaxweynaha dawladda Puntland Siciid Cabdilaahi Dani madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash hambalyaan u dirayaa hambalyo saaxiibaday weeye rag aan soo wada shaqayna weeye rag aan iskaranayna weeye aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa guusha caaqibada leh ee tartanka ee xorta ee sida fiican u dhacay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waana u hambalyeynaynaa waxaanuna Ilaahay uga baryaynaa xilka maanta la saaray in Ilaahay u fududeeyo qofka waa loo duceeyaa Ilaahay ha idin fududeeyo xilka la idin saaray hawl baa idin sugaysa dad Puntland dayacan baa idin sugaysa dal maqan baa idin sugaya soo dhawaada waxa la idin doortay waad fahansantihiin idin la dardaarmayna maanta dardaanku waa dambeeya maanta waa hambalyo waxaan halkan uga hambalyeynaynaa madaxweynaha cusub ee maanta la doortay Siciid Cabdilaahi Dani iyo madaxweyne ku-xigeenka Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash waa u hambalyeynaynaa xilka cusub ee maanta loo doortay ee maanta loo dhaariyey in Ilaahay u fududeeyo in Ilaahay rabbiga weyn ee waaxidkii la garab galo inay iyaguna noqdaan kuwii sidii loogu doortay u guta baanu Ilaahay uga baryaynaa waana ugu hambalyeynaynaa waana ku soo dhaweynaynaa Siciid Cabdilaahi Dani madaxweyne ku-xigeenka Axmed Cilmi Cismaan Karaash hambalyo waa hambalyeynaa madaxweynaha cusub ee la doortay Siciid Cabdilaahi Dani waa u hambalyeynaynaa waxaan kaloo halka uga hambalyeynayaa Axmed Cilmi Cismaan madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo loo doortay xilka maanta isagana Ilaahay ha ku garab galo sheegaytaa Ilaahay la garab galo waa idin soo dhaweynaynaa waana idin duceynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaah الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم همبليو madaxweynaha maanta loo doortay Puntland Siciid Cabdilaahi Dani iyo madaxweyne ku-xigeenka Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash waxaanu idin ku duceynaynaa ballanqaadyadiina inay kuwii u fulaan noqdaan in Ilaahay idin garab galo hanantaan Puntland waxaan hambalyo iyo tahniyad u dirayaa iyo bogaadin madaxweynaha xilka loo dhaariyay ee dawladda Puntland mudane Siciid Cabdilaahi Dani oo aan aqaano amaanadiisa iyo shaqadiisa iyo maamulkiisa oo aan ogaa organisationo badan uu maamuli jiray oo qurbaha ah oo aan aqaanay xilliyadii uu dawladda dhexe u shaqaynayay iyo madaxweyne ku-xigeenka Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash oo aan noloshaydaba agtiisa inta badan la noolaa oo nin karti leh oo hufnaan leh oo ammaano leh waan u hambalyeynayaa waxaan leeyahay maanta duco baad mudantihiin Ilaahay xilkaad qabateen idinku asturo Ilaahay culays baad qaadeene Allah idinku asturo Puntland kala daadsan oo gobollo maqan yihiin baad timaadeen Ilaahay waxaan ka baryaynaa in Ilaahay gacmihiina ku soo ururiyo gobollo maqan ay yimaadaan